gabadhani waxay gacanteeda ku qortay 114 suuradood ee Qur'aanka Kariimka sanad iyo googo ay ku fooganayd kalaamka Ilaahay 15 jir markay ahayd 2 jeer ayay ku riyootay iyadoo ku raaxaysanaysa jannooyinka Ilaahay ku abaalmariyo kuwa adeeca waxay minguurisay aayadaha Qur'aanka Kariimka inta ay qol hoosta ka soo xiratay iyadoo ilmeynaysa hibadeeda farshaxanimada leh ayay ku qaabaysay xuruufta dhiganaha raandhiiska leh taasoo noqotay guul weyn oo qof islaamahi uu soo hooyay culimada waaweyn ee muslimiinta ayay ka heshay dhambaalo tahniyada kitaabka Qur'aanka Kariimka waxa uu sal u yahay diinta islaamka oo waxyigiisa Ilaahay uu ku soo dejiyay Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee isagoo soo wakiishay malakul Jibriil waxaana uu kala saaraa adduunka iyo aakhirada runta iyo beenta mugdiga iyo iftiinka jannada iyo cadaabta waajib ayay ku tahay qof walba oo aaminsan Alle iyo nabigiisa Muhammad inuu xifdiyo kuna dhaqmo Qur'aanka Kariimka Qur'aanku waxa uu ka kooban yahay 2 qaybood Makki iyo Madani oo loola jeedo Madiina iyo Makka oo ah magaalooyinkii uu ku kala noolaa nabigu markii loo waxyoonayay ereyga Qur'aan waxa kitaabka Ilaahay laga dhaxelaa 70 jeer gabadha sida weyn looga hadalhayo caalamul islaam ee gacanteeda ku qortay kutubka Qur'aanka Kariimka waxa ay ka soo jeedaa dalka Hindiya taasoo qalin iyo waraaqo si laaxin la'aan luqadda Carabiga ugu qortay 114 suuradood oo ka bilaabanaysa suuratul Faatiha diinta islaamku ma diidin mana durin in gacanta lagu qoro 114 aayadood ee kutubka Allah ka soo diray samada sare oo lagu magacaabo Al-Furqaan waxa kaloo loo yaqaan Al-Huda Al-Dikri ama xasuustii Alle Faaduma Saxaaba waa gabar 19 jir ah oo ku dhalatay degmada Keenuur ee gobolka Kerala ee koonfurta waddanka Hindiya yaraanteedii waxa ay ahayd gabar dhiifoon oo aragti dheer waxay la soo kacaysay hibadeeda wax qorista oo ay ku bilowday sawir gacmeedka waxay ku dheerayn jirtay farshaxanka iyadoo mar ku dhawaatay inay noqoto cilaan saare kolkii lala fajacay mawhibadeeda cajiibka ee gabdhaha walaalaheeda ay ugu sharaxi jirtay marka ay jiraan mahrajaanada iyo feestooyinku jacaylka ay u qabto diinta islaamka iyo garaadkeeda oo aad u sareeyay ayaa u suuro geliyay inay 4 jeer dhamayso Qur'aanka Kariimka waxayna isku bedeshay iyadoo yar qaari loo daba fariisto tafsiirka Qur'aanka Kariimka waxa ay sheegtay in 2 jeer oo kala duwan ay ku riyootay iyadoo ku raaxaysanaysa jannooyinka Ilaahay ku irsaaqo kuwa baariyiinta maadaama camalkeedu uu aad u wanaagsan yahay booqashadii qoyskeeda ee waddanka Cumaan ayaa ku dhiirigeliyay xirfadeeda farshaxanka goortii ay ka qayb gashay ololaha horumarinta farshaxanka oo ay goobjoog ka ahaayeen xeeldheerayaal lagu ixtiraamo farsamada sawir gacmeedka dalka Cumaan ayay ku soo qaadatay waxbarashada fasalada 9aad iyo 10aad iyadoo geediga farshaxanka ka bilowday dalkeeda hooyo ee Hindiya goortii ay dugsiga sare ku dhamaysatay Faaduma Saxaaba markii ay dhamaysatay waxbarashada dugsiga sare walwal kama qabin xirfadeeda iyo waxa ay baran doonto sababtoo ah waxay jeclayd farshaxan ku naqshadaynta koonkan iyo waxa kor socda taasoo ku riixday inay abaarto xirfadda naqshadaynta guryaha oo ay ka bilowday kuleejka Keenuur waalidkeeda ayaa la yaabay jacaylka gabadhoodu ay u qabto farshaxanka sayniska maadaama xilli walba ay arki jireen iyadoo ku foogan warqadaha iyo buugta ay ku dul dhigaysay sawirro soo jiidasho leh maalin maalmaha ka mid ah waxay aabaheed u sheegtay inay doonayso inay Qur'aanka Kariimka amiin guuriso balse aabaheed ayaa u sheegay inuu culimada kala tashan doono waxa ay diinta islaamku ka qabto aabaheed ayaa muftiga hordhigay waxa ay diintu ka qabto damaca ay gabadhiisu la soo korayso waxaana muftigu u sheegay inay bannaan tahay in la qoro Qur'aanka Kariimka haddii aan wax laga bedelayn Faaduma Saxaaba kaliya ma aha gabar muslimada oo wanaagsan waxay leedahay qalbi iftiimaya oo waxaaba farxad geliya dhageysiga Qur'aanka Kariimka aabaheed oo u ahaa garab iyo gaashaan ayay weydiisatay inuu guriga u soo dhigo qalabka wax lagu qoro si ay u bilowdo qoridda aayadaha Qur'aanka Kariimka waxaana uu u soo iibiyay khad qalimaan xaashiyo iyo buug tiro badan
hayaanka qorista qur-aanka kariimka oo ay bilowday bishii Agost ee 2020 ayay ku iba furtay guurinta juz ilaa 2 juz oo ka mid ah qur-aanka kariimka iyadoo ku bilowday suuratu al-Faatiha. iyada laftigeeda riyo ayay la ahayd sida ay wax ku bilowdeen. run ahaantii qoyskeeduna aad ayay ugu farxeen wadada ay qaaday gabadhoodu iyadoo falcelin wanaagsan iyo tixgelin ka heshay dadka deriska. Faaduma ayaa sheegtay inay aad isaga ilaalisay inay khalado xuruufta qur-aanka kariimka oo ay isticmaali jirtay qalin qori la tirtiri karo kadibna ay ku bedeli jirtay qalin khadiisu aysan go'ayn. Faaduma inay qorto 114 suuradood oo qur-aanka kariimka waxa ay ku qaadatay 14 bilood oo kaliya iyadoo qortay kutub qur'aana oo ka kooban 104 bog. waxaana ay tiri bilowgii hore hawshu waa ay wanaagsanayd balse markii dambe waa ay yara dabacday, laakiin markii aan qoraalkayga sii waday waa ay ii kala baxeen wax walba. Faaduma ayaa sheegtay in waalidkeed aysan abidkeed ka hor istaagin inay riyadeeda ka guul gaarto. Aabbahay aad ayuu u farxaa marka dadku ay jeclaadaan dhigaalkayga, markastana shaqadeeda waa uu mahadiyaa. Faaduma oo soo gabagabaysay qorista kutubka qur-aanka bishii Sebteembar ee sanadkan waxa ay ka hadashay guusha ay gaartay iyada oo tiri waan yara xishoonayaa, hase yeeshee haatan waan ku faraxsanahay sida arrimuhu ay u socdaan iyo in la iga hadlayo. waxay ila tahay waxaan helay qiimihii hawshii adkayd ee aan qabanay. markii ay dadku wax wanaagsan iga sheegaan waan farxaa, waayo yaan jeclayn in wax wanaagsan laga sheego ayay hadalkeeda ku soo gabagabaysay. waalidiinta Faaduma Saxaaba ayaa aad ugu faraxsan wadada ay gabadhoodu qaaday, waxaana ay sheegeen inay ku faanayaan guusha ay gaartay. hooyo Naadiye Ra'uuf ayaa sheegtay in barakada Alle ay gabadheeda Faaduma ku dhamaysay shaqadeeda. dhammaantayo waan ku faanaynaa shaqadeeda iyo shakhsiyadeedaba. waa gabar hawlkar ah, wax walbana way u hagar baxdaa ayay tiri. aabaheed Cabdira'uuf oo isna ka hadlay guusha ay gabadhiisu gaartay ayaa yiri Allah ayaan uga mahad celinayaa inuu isiiyay gabar qurux badan oo Ilaahay ka cabsata. fursad dahabi ah. shirkadda Go Turkian Study waxay ku soo bandhigaysaa fursaddii ugu dambeysay sanadka 2021 taasoo ah ka qaybgelidda wajiga saddexaad ee imtixaanka YOS oo uu ardaygu ku heli doono 80% scholarship jaamacadaha ugu tayada badan dalka Turkiga iyo 50% qiimo dhimis adeega fiisaha waxbarashada. si aad uga faa'iidaysato fursaddan dahabiga hadda iska diiwaan geli xafiisyada shirkadda oo ku kala yaal Muqdisho, Hargeysa, Garowe, Boosaaso, Burco, Boorama iyo Nairobi, Kenya ama kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.